sugan bariga magaalada London oo halkii lagu ciyaaray ciyaarihii Somaliland ee ahaa ka soo qabkii koobka Afrika oo meel wanaagsan soo gaaray waxaan fursad qaali ah u yeelanay fanaanka caanka Cabdi Cumar Cabdi Ilaaye oo ku caanay Cabdi Cumar oo taariikhdiisa hadaan caawa halkan ka taabto ku soo jiray fanka Somaliland ama fanka Soomaaliyeed qayb dheer oo bilaabay 1985 ilaa imika Carabaha Soomaaliya wadankan Ingiriiska waxa ragii ugu soo halgamay ilaa SNMT ilaa imika intay noqonaysay qaran Somaliland tii u dambeysay Somaliland dalkii joogay lagu casumay Cabdi caawa aad iyo aad waxaan halkan uga wareysanaynaa fankiisa qiimaha leh uu doonayo inuu soo gabagabeeyo si qiimo badan السلام عليك عبد كسو دو ولاد حسين aad baad maasantahay halkan isla waxa ila joogo iimi fanaanka iska qaaliga ah ee aadka loo jecel yahay nuur daalacay nuur marka hore saaxiibku soo dhaweeyay intaan anigu waraysigayga horta aan u gelin aad baan ku soo dhaweeyay anigu aad baan ku salaamay walaalkay ku saco aad iyo aad baa u mahadsantiin mar labaad Xuseen iyo Xamse Salaan Media oo halkan iyaguna fursadan i siiyeen halkan ka hadlo runtii Xuseen saa sheegtay fankayga waxaan soo bilaabay muddo aad u fog haddaan silaa ku noqon karo waxaan fursad qaali ah u helay halkan Ingiriiska markii aan Xuseen u bilaabayay inaan fanaaniin Soomaaliyeed oo fanka wada mid iyo laba marka laga tago aanay joogin alxamdulillah intii anigu mishankaygu amba ujeedadeedu waxay ahayd in heesahan Soomaaliga inuu dhaqanka u leenahay iyo af Soomaaliga laftiisa inaan Xuseen oo lumin oo marka dib ugu noqoto waxa tagala 9 in aroosyada heesa Mareykan laga ciyaar jiray dadka is arooseen aanay yihiin Soomaali waxa isku taxalujiyay Xuseen marka inaan ka bedelatii oo aan dhaqankeeni iyo sugaanteeni iyo afkeeni saanay u lumin aanu ku soo celino af Soomaali inta hadaan ka imaado Xuseen inta badan anigu imika baryahan dib waxaan u badnaa heesaha wadaniga ah waxaan nin Somalilander I'm proud ilaahay baan ugu mahadcelinayaa inaan noqdo nin Somalilander in badan baan intii aniga taagteeda u soo shaqeeyay inaan Somaliland aan Xuseen oo wixii aniga aqligayga iyo afkayga ah ninna lacag buu ku dagaalamaa ninna qori buu ku dagaalamaa ninna xoog ninna af buu ku dagaalamaa maadaama ilaahay anaga hibadii noo siiyay inaan afkii ku dagaalano inaan afkii anigu aan yaani wixii aan wadankayga ugu qaban karo aan ugu qabto maanta nasiib waxa daba u helay Xuseenow maadaama aan muddo dheer fanka ku soo jiray wax kastana waxay leeyihiin walaal limit bay leeyihiin aba xad bay leeyihiin fursadan qaaliga aniga kaga faa'iideysanaya waxaan halkan ummadda Soomaaliyeed ee waliba Somaliland ee aan jecelahay aan halkan uga sheegayaa fankaygii aan soo waday inta inuu gabagaboobay oo ay ugu dambayso aan fanaan daba aan ahayn waxaan si sharaf leh oo naxariis leh uga codsanayaa taageerayaasheeda fanka amba ay dhageysan jiray amba ay jecel amba wax kale iga filayay heesaha ku jira YouTube-ka amba TV-da laga saaray anigu raali kameehi waxaan si naxariis leh idinka codsanayaa anigu aan raali ka ahayn baan idin sheegayaa inaad dhageysataan oo daawataan aad iyo aad baa u mahadsantihiin laakiin intaan noolahay Somaliland waan u shaqeynayaa ma aha inaan hees ugu shaqeeyo waxaan ahay nin ciida iyo dalka iyo dadka isagu la baan nahay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa Xuseen say warayska iga qaadeen